madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugan Togdheer gobolka Togdheer ee magaalada Burco ayaa saaka soo kormeeray xarumaha maamulka gobolka Togdheer xarunta dawladda hoose wasaaradda maaliyadda cusbitaalka guud isagoo geesta kalena waxa uu xariga ka jaray mashaariic horumarineed oo laga hirgeliyay magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Xamsada Baare ayaa warkan inoo soo diray madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo maalintii labaad ku sugnaa magaaladaasi Burco ee xarunta gobolkaasi Togdheer ayaa saaka kormeeray xarumaha maamulka gobolkaasi Togdheer xarunta dawladda hoose wasaaradda maaliyadda cusbitaalka guud ee magaaladaasi Burco waxaana uu madaxweynuhu hambaliyo ku bogaadiyay dawladda hoose magaaladaasi Burco 8 sano u dambeysay ku foogneed mashruucaha laga hirgelinayo magaaladaasi Burco geesta kalena waxa uu xadhiga ka jaray mashruuca horumarineed laga hirgelinayo magaaladaasi Burco bogaadinaya sideedaas sano joogteen xisaab xirka aad keenteen iyo mashaariicda aad qabateen iyo dadaalka aad samayseen waa idinku bogaadinaya mar walba hay-ad kasta dawladda hoose wasaarad hay-ad kale ciidan maanta marxaladda aynu marayno dhaqaalaheena iyo tamarteenu mar walba intaynu qabsanay iyo baahidu mar walba in badan baa inoo dhiman oo aynu tamari inoo diido dadka qaarkoodna aynu isku heefno oo iyagoon hubsanin waar tamar ma lahayaa mise waa lagu hagraday ay canaantu badan tahay dawladda hoose canaanta u badan ee dawladda laga tirsaa iyaga ku dhacda idinkoo waxaa dadaalay haddana waxaa hubaala inay canaan badan iyo eed badan isku dhacdo waayo idinkaa dadkii isgaadha danyartii iyo waxyaalihii qofka u daruuriga ahaa dhan baa idinkaas ku xidhan hadduu guri doonayo idinkoodii imanaya hadduu caafimaad baahdo idinkoodii imanaya haddii amni la raadiyo idinkoodii imanaya magaalooyinkana way korayaan baahidina way badan tahay marka waxaa guulahaad qabateen waa idinka mahadnaqaynaa dadkana in loo sheega wanaagsan inta badan warku gaadho oo waxaaba laga yaabaa inaanay warbixintaasi maanta ka horow aanan horta anigu u maqalba iyagoo saa u fasiran mar walba waxaa idin wanaagsan dawladaha hoose 3 bilood 6 bilood ama bishiiba inaad mar xisaab xidhaa oo dadkan idin hor taagan alla hadashaa warda wixii aanu dhintana waxaa soo 15 bilyan baan bishii ka qaaday Burco intaana waan samayn xaga wax naga laabeen waxa loo qaylinaya dad soo dadaalo aniga waxaan taa warbixintana waa mid loo baahan yahay doorashada waxay la tahay dadku abaalka way yaqaana cid kasta ha iska hadasho waalaha yarada social media hawa ina aad ugu qiimeeyo qofku waqti waxa jecelahay qofaya in dadkiina Togdheer gobolka Togdheer ay dooranaya horta soo dadka ay idin qiimeyn doonaan hawsha qaatay muraasare wuxuu dadka oo xawaara amaan si aad buu samaa u fiirso qofka hawshiisa ay qabtaan dadku markay cod laado waxay dad ma qabo dadka in qabyaalad iyo lacag iyo wax lagu diido ma haddii dadku doorashooyinka badankooda waxa u dhacaa si rayska oo dadku qiimeeyaan qofka la dooranaya wuxuu dadka waqti iyaga naga xogaasto laakiin waxa jirta qaacido adduunka oo isticmaalo oo la yiraahdo 20 of rating waxa la yiraahdaa dalka inta wax qabatay wax soo saarta waa labaad inta wax unta ku sabtarka dibta ugu doona waa stiit hadda quraanka ay ku jirta dadka inta badan waxa ma garanaya dadka inta badan waxa ma garanaya falsafad kasta oo ku jirta adoo had iyo jeer 20 baa wax dal firsta waa qaacida caalami oo meel badan psychology-ga dhaqaalaha injineeriyada waa lagu qiyaasay marka maanufarka marka siyaasad joogo 20 ka wada maalinta boodka oo bixinta state ka riixi karaan waana cabsi ay qaatay dadka dimuqraadiyadda ku shaqeeya la doortay codka raadiya cabsi baa ku dhacda dadka halgid u joogso waxay loo state-ka aamusan inay yihiin kuwa hadda dadka bixinaya ee aanahay 20 ka buu qabada TV-ga u fadhiya marka hadaynu ku qaldana 20 ka waan fududayna anigu guriga oo qabyana waan soo maray quracana waan joogi jiray 8 sano ka hor iyo 20 iyo 3 sano ka hor bana waan joogay anigu waxa wala aad iyo aad uga qabateen xagga wadooyinka magaalada Burco waxa way ka qabateen
ciidamada Afrika waxyaalaha kale ku darteen ee ardayda ee security-na waa ku mahadsantihiin waxaan kusoo koobayaa waa ka bogaadinaynaa ummaduna way ka mahadnaqaysaa iyo waxa akhrinayna u furteen waxaan kusoo koobayaa maanta iyo shalay oo dila joognay magaalada soo abaabshay xamse dabaare